malaa'igtana wuu kala fadilay dhulka qaybihiisa kala duwanna wuu kala fadilay zamankana wuu kala fadilay isku mid maaha waqtiyada ilaahay tabaaraka wa tacaala kuwa ugu fadli badan waxaa ka mid ah bisha ramadaan oo inugu soo food leh oo inugu soo dhow oo maalmo ka laaban yihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu zamanka u kala fadilay iyo amaakinta xikmadda ku jirta waxaa ka mid ah inuu addoommadiisa ku imtixaano balsay uga faa'iidaystaan haddaba su-aashu waxay tahay bishii baa inugu soo dhow barakaysnayd khayraadka badnayd ilaahay naxariistiisu badnayd intaynaan gelin bisha intaynaan gaadhin maxaynala gudboon maxaan samaynaa seen bisha ku qaabilaa sideen ku soo dhoweynaa tilaabada koobaad ilaahay inaan barino tabaaraka wa tacaala inuu nabad iyo caafimaad inagu gaadhsiiyo maxaa yeelay salafku ridwaanullaahi calayhim 6 bilood oo ka horraysa bisha ramadaan ilaahay waxay weydiisan jireen inuu bisha gaadhsiiyo leanna waa jaanis weyn in badan oo dadkii walaalaheen ee bishii sanadkii hore bisha ramadaan inala soomay oo inala tukaday ayaa maanta dhulka ka hooseeya jaaniskan mayna helin adigana waxaa dhici karaysa maalmaha ramadaan ka laaban in lagu kaxeeyaa dhici karta in lagula tagaa dhici karta inaad geeriyootaa dhici karta inaan jaaniska lagu gaadhsiinin baa dhici karta sidaas daraaddeed inaad ilaahay weydiisato ilaahay inuu nabad iyo caafimaad kugu gaadhsiiyo bishu markay dhalatana nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi siduu samayn jiray allah buu weydiisan jiray ilaahu bisha noogu dhali iimaan iyo ammaan islaamnimo iyo nabadgelyo salaama iyo inaadna waafajiso waxaad jeceshahay oo khayr qodobka labaad bisha inaan ku soo dhowayno ku qaabilno farax aan ku faraxsannahay khayraadka dhexdeeda yaalla dembi dhaafka yaalla aakhira iyo kasabka yaalla in ilaahay ina gaadhsiiyo maxaa yeelay nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi saxaabadiisa wuxuu ugu bishaarayn jiray ramadaan inay soo gashay mu'minkuna iyo ruuxa muslimka daacada ilaahay iyo khayraadka wuxuu ugu farxaa si ka badan cuntada iyo cabitaanka iyo shahawaadka sida ugu farxaya si ka badan sidaas daraaddeed waxaan ku soo dhowaynaynaa ama ku qaabilaynaa farax iyo inaan ku faraxsannahay inuu ilaahay mar kalena soo gaadhsiiyo qodobka saddexaad ee loo baahan yahay waxa weeye bishii way soo socotaa waana jaanis weyn in aad qorshaysato ood nadaamsato ood balaan dejisato saad uga faa'iidaysan lahayd maxaa yeelay hadday ku soo gasho adoon waxba kuu nadaamsanayn waxba kuu qorshaysnayn si fudud inay kugu dhaaftaa dhici karta oo aad markaa noqoto qoladii nebigu habaaray sala allahu calayhi waaalihi wasalam jibriil habaaray baan dhihi lahaa nebiguna aamiin yidhi sal alla alay wasalam waa ruux ramadaan u soo galay oo ramadaan dhaafay asagoo loo dembi dhaafin waa habaaran yahay malaku jibriil baa habaaray nebi maxamedna sal alla alay wasalam aamiin buu yidhi allahu aqbal si aad uga faa'iidaysato qorsho la imow marka leanna waxyaalo badan baa inugu tacalluqa adduunyadii baa inugu tacalluqda ganacsi baa inugu tacalluqa xeerihii iyo carruurihii iyo mataalibtii adduunyada inugu tacalluqda mataalibta adduunyada iyo ka faa'iidaysiga bisha ramadaan saad isu waafajin lahayd qorshe iyo nidaam bay u baahan tahay haddaadan qorshe lahayn marka waxaagu wuxuu noqonayaa waan jeclahayna wax kuma suuroobaan waan rabaa basa aan qorshe lahayn miaal ahaan inaad bisha ramadaan cumraysataad rabtaa bisha dhexdeeda haddii aad
tiraahdo haddaan bilaabaya waxba kuma soo roogi karaa bisha soo socodkeeda waa inaad qorshayto seed ku cumraysan lahayd inaad sadaqa baxsataad rabtaa sadaqaduna waxyaalaha ugu fadli badan bay ka mid tahay sadaqadii meeshay ka imaan lahayd waa inaad sii diyaariso bisha ramadaan inaad qur-aanka intaasoo goor dhammaysaad rabtaa sidaad ku dhammayn lahayd qorshaheeda waa inaad dejiso inteebaad maalinkii akhrin wakhtiyeedeebaad akhrin waa inaad nidaam iyo qorsho iyo wakhtigood qaybiso inaad samayso wey way kuu kaalmaynaysaa qodobka afraadi waxa weeye inaad niyad dhab ah oo run ah iyo doonitaan daacadi ku jirto aada la timaado maxaa yeelay allahu tabaaraka wa tacaala addoonkiisa wuxuu ka fiiriyaa qalbiga maxaa qalbiga ku jira maxaad doonaysaa doonidda daacad ma ka tahay go-aan ma kaa yahay mise waad ciyaaraysaa calaa qadri ahli lcasmi ta'ti alcazaa'ib kolba go-aankaagu sida uu yahay iyo dadaalka aad ula timaado baa biidni illaahi ilaahay wax kugu siinaya laakiin adiga haddaad ishagrato oo qalbigaaguba labaclaabcaya oodan go-aan lahayn see wax lagugu siinaya saas daraaddeed casiimo dhab ah ilaahay tabaaraka wa tacaala si ruuxii daacadnimo iyo dadaal kula dhaqmana isagana dadaalkiisa ilaahay baa u rumeeya wuxuu rabay baa loo xaqiijiyaa waase markuu isaga xaggiisa wixii xaggiisa jiray oo dhan uu bixiyo qalbigiisa hogaamiyo go-aankii la yimaado dadaalkii la yimaado allah tabaaraka wa tacaala markaas waa kaalmaynaya laakiin addoonku hadduu isagu isxakrado yaa wax ku taraya way marka saas daraaddeed niyad adag iyo casiime iyo go-aan adagoo qalbigaaga si aad uga faa'iidaysan lahayd bisha inaad la timaado qodobka shanaadii waxa weeye loo baahan yahay in aynu baranno bisha axkaamta ku saabsan soonka axkaamtiisa salaada habeenkii axkaamteeda sadaqa hadday tahay haddaad cumraysanayso lianna cilmiga iyo barashadu asaas waxay u tahay inay cibaadadaadu saxanto haddaadan aqoon lahayn oo ilaahay aad ku caabuddo jaahilnimana waxa aad samaynayso ma hubtid inaad u samaysay sidii lagaaga rabay wabittaali waxaa dhici karta inaad dadaalayso ha ahaatee camalkaagu uusan waxba ka jirin nabigeennana waxaa ka sugan sal alla alay wasalam inuu yidhi waxaa badan dad sooman oo soonkooda gaajo iyo oon waxaan ka ahayn aan ka helayn way gaajoodeen wayna oomeen waxse ilaahay agtiisa uma yaalo dad waxaa jira habeenkii taagan oo tukanaya oo soo jeed mooye wax kaloo ka heleen aysan jirin sayna taasi kuugu dhicin cibaadada saxo salaada saxo soonka sax sadaqada sax cumrada sax xajka sax faclam annahu laa ilaaha ila allah cilmiga iyo barashada wuxuu ka horeeyaa wax kasta intaadan hadlin baro intaadan samaynin baro saxo wixii ilaahay kugu waajib yeelay tabaaraka wa tacaala haddaad sixi weydo oo aad tidhaahdo dadkaan iska raacaya waa la iska samayn jiray waan soo gaadhay siday dad badan yihiin waxaad dhici karaysa maalinta qiyaamada ilaahay inaad u tagto adigoo isle wax badan baa ku yaala oo wixii meesha aad ku tashanaysayba uu noqdo waxaan waxba ka jirin laanna khalad baad ku samaynaysay khaladna waad ku socotay mana aadan saxanin saas daraaddeed akhri daalaco weydii dhegayso cibaadada ka hor cilmigeeda la imo qodobka xigaayo wuxuu yahay ee loo baahan yahay ramadaan ka hor inaynu la nimaadno waa inaynu towbad keenno dunuubtii hore inaynu ka soo noqono safxa cusub beej cusub inaan ilaahay la bilowno lianna dunuubta oo laga soo noqdo towbad dabca lala yimaado towbad dabca inuu addoonku la yimaado qalbigiisay sifaynaysaa qalbigay wasakhda ka qaadaysaa daxashii bay qalbiga ka sifaynaysaa yacni towbaddu qalbigu markuu sifoobo saafin noqdana wuu xoogaysanayaa wuxuu awood iyo xoog u helayaa daacada inuu macaansado soonkii baa u macaanaanaya salaaddii baa u macaanaanaysa qur-aankii baa u dhadhamaya waa iftiimaya waa dhalaalaya wasakhdii iyo qashinkii baa ka fogaanaya say ku imaanaysaa towbadday ku imaanaysaa watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun liibaanta addoonkaba ilaahay wuxuu ku xidhay towbadduu ku xidhay saas daraaddeed wixii dembi aad ku jirtay ka dhexbax wixii aad samaysay ka qoomamood ka xumow ka gubo ilaahayna weydiiso inuu kuu dembi dhaafo wixii hore kaa saamaxo
sidaasaa marka waxaad bilaabaysaa nolol cusub bisha ramadaan iyo khayraadka ku macaanaada iyo inaad si fiican uga sahay qaadato ilaahay naxariistiisa iyo barakaadka bisha ku jira saas daradeed tawbad inaynu la nimaadno oo aynu bisha ka hor toobad keenno ilaahay sidii aynu wanaag fiican uga heli lahayn bisha ramadaan dhexdeeda fursadaasina aynu uga faa'iideysan lahayn sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لما تحب وترضى يا حي يا قيوم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك